Fooridii jacaylka waa qisad jacayl oo dhab ah oo ka hadlaysa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha sida farxadda, murugada, ciilka, waxla'aanta, isku dirka iyo qaybo kale oo quseeya nolosha qofka bini'aadamka ah. Qisadani waa qisad dhab ah oo ka dhacday qaybo ka mid ah Soomaaliya, waxaana qisadan qoray oo qalinka u qaatay Al-Ustaad Axmed Diiriye Afrax. Qaybtii koowaad, jacaylkii foorida. Ka waran haddii aysan jirin qaab kale oo aad ku wacan karto ama kula xiriiri karto qofka uu idinka dhexeeyo jacayl oo aan ka ahayn foori aad ku qaadayso hees aad isku og tihiin qofkii aad jeclayd oo aad kula ag warwareegaysanayso gurigii qofkii aad jeclayd si uu u maqlo fooridaas uuna u ogaado inaad timid oo aad doonayso inaad aragto, la kulanto ama la sheekaysataba. Waqtigu wuxuu ahaa birisamaadkii. Saadaq wuxuu dhiganayay dugsiga sare Cusmaan Geedi Raage. Wuxuu jacayl xad dhaaf ah u qaaday gabadh ay isla dhiganayeen fasalka oo aad iyo aad u qurux badnayd. Gabadha waxaa la dhihi jiray Canab. Canab waxay ahayd gabar uu Eebbe ku manaystay qurux dahabi ah oo soo jiidasho leh. Qofkii mar arkaana uusan ka jeesanaynin runtii. Waxay lahayd joog iyo jamaal, indho xooral cayn ah, bushiman casaan ah, midab dahabi ah, ilka dabar leh oo leh lakab aad u qurux badan, jir kala go'go'an, qaab dhismeed dumar kii ugu quruxda badnaa, socod cirib taagsi ah oo ay kolba dhan u liicayso, qosol qurux badan oo qalbigaagaba qasaya. Canab waxaa xitaa indhaha la raaci jiray macallimiinta wax u dhiga oo igu soo orod ma aysan ahayn. Saadaq wuxuu u qaaday jacayl xad dhaaf ah oo isaga uun ku koobnaa maadaama aysan iyada wax war aba aysan. Waxay ahayd xilli in aad jacayl soo bandhigato ay aad iyo aad u adkayd runtii, oo xitaa laga xishoon jiray ama laga cabsan jiray dhihitaanka ereyga waan ku jecelahay. Oo haddii aad qof u qaaddo jacayl in muddo ah, waa lala aamusnaan jiray ama laga cabsan jiray qofka aad jacaylka u qaadday. Qaabka ugu fudud ee lagu gudbin jiray fariimaha jacaylka ayaa waxay ahayd in la qoro waraaq jacayl ah, lagu sawiro ubax qurux badan iyo il ay ilini ka tifqayso. Waxay ahayd xilli uu jacaylku aad u qiimo badnaa runtii. Saadaq ku dhowaad muddo 2 bilood ah ayuu hawada ka jeclaa Canab, oo mar walba uu indhaha saaro uu dareemi jiray farxad iyo naxdin isku dhafan. Mar weliba wuxuu raadin jiray fursad uu ku salaamo, balse dhowr jeer bay uga hor timid meel ka mid ah iskuulka. Balse iska daa inuu salaamee, markuu indhaha kac ku siiyo Canab oo si xarago leh u soconayso, waxaa aad u garaacmi jiray wadnaha oo afka u soo geli jiray. Mar weliba oo uu habeenkii soo xasuusto quruxda iyo qaab dhismeedka Canab, wuxuu isku canaantaa sababta uu awoodi la'yahay xitaa inuu salaamo, iska daa inuu jacaylkiisa u sheegtee. Alla jacaylku xanuun badana kolka aad qofka aad jeclaato oo uu jacaylkiinnu kugu sii ballaarto iyada oo aysan jirin cid kuu og. Waa caqabado soo wajaha qaar ka mid ah dhallinyarada maanta, khaas ahaan marka uu qofku yahay hanaqaad, haasawo iyo jacayl bilow ah. Qaar badan ayay xaaladahaasi la soo darseen oo aqoon fiican u leh kolka uu jacayl aan laga warhaynin meel cidlo ah kugu haleelo. Saadaq ayaa xilli break time ah, ardadii ay qaar doonanayeen quraac, qaarna ay raxan u sheekaysanayeen, wuxuu indhaha ku dhuftay Canab oo keligeed taagan meel geed hoostiisa ah. Geedkaasi oo uu ku dhex yeelay wuxuu arkay fursad uu ku bilaabi karo xiriir ka bilaabanaya salaan kadibna isu beddeli kara sheeko iyo kaftan. Si isdhexgal ah, Saadaq wuxuu u soo tallaabsaday dhankii ay taagneyd Canab oo u muuqatay qof halkaas ka sii dhaqaaqi raba. Saadaq lagihii baa culays noqday, wadnihii baa garaactan bilaabay. Wuxuu dareemay naxdin xad dhaaf ah. Wuxuu soo ag istaagay Canab oo si toos ah u fiirinaysay ilaa waqtigii uu ku soo dhowaanayay. Saadaq oo hadalka ku marganaya ayaa wuxuu yidhi, Canab, waan ku salaamay abbaay. Canabna waxay tidhi, waan kaa qaaday aboowe. La soco qaybta labaad, sheekadii la magac baxday jacaylkii foorida. Sheekadani waxaa qalinka u qaatay Al-Ustaad Axmed Diiriye Afrax.